naxariista ee dhowaan waxaa ku geeriyooday jamhuuriyadda Somaliland abwaankii weynaaye Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. haddaba jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalka kan UK khaasatan bariga magaalada London ayaa waxa ay dirayaan tacsiid tiiraanyada oo ay u dirayaan qaranka jamhuuriyadda Somaliland eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo guud ahaanba ummadda islaamka ah. tacsiidii ay dirayeenna waxaa ka mid ahayd hadaladii ay halkaasi ka soo jeediyeen sida tan: لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan maanta halkan uga tacsiyadeynaya ummadda reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed waxa Soomaali ku hadlaba marxuumkii naga baxay Maxamed Warsame Ibraahim Hadraawi oo nin aad iyo aad qiimo ugu lahaa ummadda Soomaalida dhexdeeda waxa la wixii Soomaali ku hadla naxariista abwaankeeni weynaa qoraageeni macallinkii tiirkii ummadda aabihii nabadda wax badan baa lagu xasuustaa nolosha meel walba uu ka soo galaa caruurtuu soo galaa waalidkuu soo galaa xaasaskuu soo galaa ragguu soo galaa taladuu soo galaa meel uu ka maran yahay ma jirto. waxaa lagu tilmaami karaa Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi inuu ahaa indhihii ummadda indhaha ummadda markaan leeyahay wuxuu ahaa nin wax kasta oo masiiba ama halka uga jawaaba sida ay tahay ugu wanaagsan iyo siduu dadka uga waanin karo. waa nin macallin buu ahaa, wuxuu ahaa macallin dhinac walba anigu hadalka si badan kari maayo oo taariikhdiisii wixii soo dhanba dee raggu ka wada sheekeeyey. Maxamed Ibraahim Warsame Saciid in ilaahay janno fartoosa geeyo oo dembigiisa dembigii waalidkii baa la dhaafo insha Allah. ilaahay waxaanu ka baryaa in ilaahay uu ka dhigo kuwa jannada fartoosa ilaahay maca uga dhigo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo ducaynayna maxamed sallallahu ducada iyo tacsiida aynu sameynay golaheennanu haddaynu nahay jaaliyadda degan East London ilaahay ayna ka abaalmariyo khayrana ka abaalmariyo. aad baanad muxuu ahaayey u mahadsantihiin xoogaa maaragtay yar emotion baan iyo noqday ilaa intii geeridu dhacday marka dadkoo dhan baan la qaybsanayaa insha Allah ilaahay samir iyo iimaan hayna siiyo waayo waxaanu ahayn laba qof aad isugu dhow waxbarashadeedii qayb ka soo qaatay aan la soo koray marka ilaahay dambigiisa ha Aynaawi Cismaan Ducaale TV-ga qaranka jamhuuriyadda Somaliland London.